السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخيارت Soomaaliyeed meel kasta aad joogtaan dunida daafiyada soo dhawaada waa walaalkiin Cabdikhaliq Dhuuxyare waxaan rabaa insha Allah bilmakarim in halkan ku soo gudbiyo barnaamij muhiim ah barnaamijkaas ku saabsan cilmiga astronomiga oo quseeya yani sida dhulku u wareego qoraxda sida wareeg u samayso meerayaasha kale marka laga tago meerahan aynu ku noolnahay ee dhulka loo yaqaan badi insha Allah bilmakarim laakiin taanan guda gelin dad badan oo Soomaaliya waan ogahay way aaminsan yihiin dhulka inuusan wax wareega samayn dhulku taagan yahay waxaan rabaa inaan ku bilaabano hadduu Ilaahay idmo Sheekh Mustafa Xaaji Haaruun Ismaaciil oo hadda kahor su-aashaas kale la weydiiyey waa like a ball waliba waxay yidhaahdaan waa sida beedkoo kale inuu sidaa yahay waa masale iska fudud waayo dayuuradda maanta galbeedka u duusha barigay kaaga imanaysaa daynu xaggaa u duullo barigaynu ka soo geli karnaa intaas sheekhu wuxuu noo faahfaahiyey dhulku inuu yahay laba su-aalood baa la weydiiyey oo iskor saaran dhulku inuu yahay sida beed buu yiri laakiin beed badanaa ukun baa loo yaqaan beed waxa u yaqaan dadka reer waqooyiga laakiin Soomaalidu badanaa ukun bay u taqaanaa dhulkuna qaabka ukunta kale yahay taasina ay cadaynayso yacni diyaarad markab wixii kastoo dhaqaaqa oo jiha bidix u dhaqaaqa midigtu ka soo gelaya ama waqooyi u dhaqaaq bari baad ka soo gelaysaa taas weli si fiican buu u faahfaahiyey fiidiyogan linkiga waan uga tegaya insha Allah description qofka rabo inuu si fiican u daawado dadka badanaa horey u daawadeen fiidiyogan taas waa wax iska cad tusaale ahaan gobol waxaa jira Mareykanka ka tirsan Alaska wax badi ognahay Mareykanka inuu dhaco galbeedka adduunka uu ku yaal Ruushkuna uu dhaco bariga adduunka oo ku adduunka yacni ama caalamka sida u naqaan bariga uu ka dhacaa Ruushku Mareykankuna wuxuu dhacaa galbeedka laakiin su-aasha isla weydiinta leh waxay tahay waxa jira gobol Mareykanka ka tirsan Alaska la dhaho oo markii hore uu Ruushku lahaa laakiin Mareykanka laga iibiyey mar hore oo hadda Mareykanka ka tirsan marka su-aashu waxay noqonaysaa see Ruushka oo galbeed ku yaal Ruushka oo bariga ku yaal iyo Mareykanka oo galbeed ku yaal xuduud u yeelan karaan sida Soomaaliya iyo Itoobiya oo kale xuduud u leeyihiin sabab xuduud u yeelan karaan iyadoo la leeyahay midna adduunka wuxuu ka yaal galbeed midna bari taas waxa keenaysa goobaabinta uu dhulku u yahay goobaabin yacni xaggana markii wixii ay goobaabin yihiin oo goobaabin ay tahay wixii ama ukunta kale ay tahay wixii bariga jiray ukunta markii la wareejiyo ma kala yeelanayso bidix iyo midig iyo jiha kasta yacni wixii ku mid laakiin hadduu dhulku ahaan lahaa wax fidsan oo kaleeto marnaba ma suuroobi lahayn oo ma suuroobi lahayn inuu uu dhulku kubad yahay ayuu uu kubad yahay ma suuroobi lahayn in Ruushka iyo Mareykanka ay xuduud yeeshaan bilmasal hadduu dhulku iska fidsanaan lahaa Ruushka uu xaggan ku yaal Mareykanka uu xagga ku yaal oo kaleeto xuduud ma yeelan lahayn wadamadan oo dhan dhexda ku jiro dhan baa u dhaxayn lahaa laakiin maadaama uu isku soo laaban yahay waxa keenaysa in saas ay xuduud u yeeshaan aynu ku sii socono fiidiyowga sheekha iyo ka hadlitaanka dhulka wareegga uu samaynayo waliba dhow socdo kale ma soconaya socodka qaarkii waa waxay fusuushu ku samaysantaa xagaa iyo jiilaal iyo guul iyo waxa kan socodka qaarkiina waa waxa habeeniya maalinta ku samaysantaa inuu on its access inuu ku wareegaa waa waxa keena habeeniya maalinta yukawiru leyla cala nahaar baa ilaahay يعني halkaas sheekha wuxuu ka hadlay dhulku inuu sameeyo dhowr wareeg oo kala duwan laakiin labada wareeg ugu muhiimsan waxay tahay laba socod yani labada socod ugu muhiimsan inay tahay inuu isgedgedinayo isagu iswarwareejinayo iswarwareegaasna ay tahay hadba dhanka uu qoraxda ka arko oo hadba dhanka uu qoraxda ka arko in habeenkii maalintu ay ku samaysmanayaan sida cimaamada sheekha kale ag fadhiyo oo ku tilmaamayo ugu wareegsan tahay inuu sidaas oo kaleeto oo yani habeenkii maalintu uu samaynayo 24 saacba hal mar buu wax sameeyaa wareeg meesha ka dhaqaaqa yani ku soo laabto naftiisu isu gedgedinaya marna wuu soconayaa isagoo dhan baaba soconaya wuxuu samaynayaa wareeg guud oo cadceedda ama qoraxda uu ku soo meereysanayo 365 maalin 364 maalin iyo 6 saac bay ku qaadataa dhulku inuu meesha ka dhaqaaqay taagnaa uu ka dhaqaaqo oo meeshiisu ku soo laabto
inta uu 364 maalin iyo 6 saacba sanad kasta yani 6 saac baa la socota bisha Febraayo markii 29 ku dhamaato 4 saac baa isku tagay 4 ku dhufo 24 saac maalin baa halka ka soo baxaysa marka bisha Febraayo 4 sanaba mar bay ku dhamaataa 29 saacada 6 saac baa yani halka ka soo baxaa haba ka soo baxday 365 ka maalin oo soconayo waxa ka dhalanaya guga jiilaalka 4 season yani waa ka dhalanaya xagaaga guga xagaaga dayrta iyo jiilaalka baa ka dhalanaya afartaas yani uu socdo si fiican insha Allah fiidiyoda dambe waan ugu sharaxi doonaa laakiin sheekhu yani halkaas wuxuu ka wadaa fusuusha yani fusuusha waa seasonada uu dhulku galo guga iyo jiilaalka iyo saddexdii biloodba marka 12 bilood oo sanadka dhamaanayo ama 365 maalin wareega uu dhulku sameeyo waa wareegtaanka uu qoraxdiisa banaanka kaga soo wareegayo laakiin wareegaas isagoo sameynaya waa hadana isagoo isgedgedinaya yani wareegana la soo meeraysanaya cadceeda isagii baa dhulku isgedgedinaya 24 saac isgedgedinaya saambu cadceeda ugu soo meeraysanaya cadceeda laftirkeeda iyadoo way soconaysaa waxay ku soconaysaa yani iyaduna waxay haysataa sayidkeeda ama haadkeeda iyaduna ku soconaysaa waxay tilmaamaan NASA oo kale hay'adda cilmi baarista hawada sare ee Mareykanka oo kale iyo kuwa Japan Ruushka Canada wadamadaas oo dhan hay'adaha yani space station ka maamula waxay isku raacsan yihiin ama isku raaceen inay jiraan wax la dhaho galactic year yani wax laga wada cadceedu laftirkeedu intay meesheedii ka dhaqaaqdo inay meesheedii ku soo laabato waxay tilmaamaan sanadkii 2016 bishii 9aad September waxaan u maleeyay dhamaadkeeda 29keeda inay ahayd baan jeclahay inay hal galactic year dhacay yani hal mar inay qoraxda meesheedii 235 milyan oo sano ka hor inay meeshay 2016 istaagtay inay hadda ka hor istaagtay adduunkan ay ku qaadanayso 235 milyan oo sano ka bacdi 2016 meeshay istaagtay inay ku soo laabanayso taas fiidiyoyada dambe waa insha Allah si fiican ugu sharaxayna على كل حال مسائل انه هذا وقت بدن وهينو دلده علميga ama nusuusta culimadu daliishato laakiin waxaan leenahay in culimada muslimiinta ee caamka iyo masaa'ilka ka warrama qadiiman wa hadiithan labada mas'alada way sugayaan wallahu a'lam يعني intaas sheekhu uga baxay wixii waqti badan uma hayno oo waqtiga kooban ay haystaan yani uma soo koobi karaan laakiin wuxuu qirayaan culimadii hore ee islaamka ay jiri jirtay iyo kuwa cusub oo iminka jiraayo inay masaa'ishan hore u sugeen aysan ahayn wax naasa iyo ay dhawaan bilowday laakiin waxaan ahayd masaa'il hore u jirtay insha Allah Abdul Karim aan naftu fiidiyoo waa gabagabeynaya laakiin tan gabagabeyn waxaan jeclahay inaan fiidiyoowan hordhaca uga faa'iideysto waxyaalaha aan rabin inaan dib ugu soo celceliyo bilmasal waxa jira wax la dhaho year ama sanad waxaan u naqaan sanadku yani waa 365 maalmood marka alxaasil that's why taas waa sababta u isticmaaleen light year yani soo dhawaanshaha hadii la isticmaalo sanadada caadiga ama kiiloomitirka caadiga waa lagu wareeraya marka that's why loo isticmaalo light year iftiinku maadaama uu yahay wixii ugu dheeraysnaa isagii baa loo isticmaalo marka bilmas waxa lagu leeyahay intaasoo light year meelahana waxa la iska isticmaalaa qof ku leeyahay imo ku leeyahay 16 daqiiqad ii jirtaa kiiloomitir waxa inta masaaxada uu soo socon karo baa lagu qiyaasayaa yani insha Allah fiidiyodan dambe aan uga hadli doona galactic year waa hadayna waa soo shay waa qoraxda meesha ka joogto inay ka dhaqaaqdo oo godkeedii ku soo laabato inta sano ay ku qaadanayso fiidiyoda dambe waa insha Allah si fiican ugu sharxi doona hadii Allah idmo waxaan jeclahay inaad channelkayga subscribe saarid fiidiyoga like saartid hadaad YouTube naga daawanaysid hadaad Facebook naga daawanaysid insha Allah Abdul Karim barnaamijkan oo la iga codsaday dhalinyaro badan ay igula talisay in wixii Ilaahay iga fahansiiyo aan ummadda uga soo gudbiyo haduu Ilaahay idmo insha Allah Abdul Karim marka isla socod wanaagsan خير بان idin rajeynaa inta samaanta fiidiyooga noo baxayna assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh